waxa la soo saaray liiska dawladaha ugu awoodda badan dhanka ciidanka marka laga hadlayo waxaana arrintaani samaysay shabakada weyn ee loo yaqaan Global Firepower. kaalinta koowaad waxaa galay dalka Mareykanka, labaadna waxaa galay dalka Ruushka, saddexaadna dalka Shiinaha. waxaa jira dawlado badan oo gobolka ah bariga dhexe, Carabta iyo sidoo kale Afrika kuwaas oo boosaska iska kala riixday marka laga hadlayo kaalmaha ay ku jiraan caalamiyan iyo qaaradda ay markaas ay ku yaalaan halka ay kaga jiraan boos ahaan. marka la qiimeynayo arrintan waxa lagu saleeyaa ilaa 6 arrin oo muhiim ah. Koow, awoodda dhanka iibka, yacni hubka ay soo iibsanayaan iyo kuwa iska iibiyaan. Labo, macluumaadka dhanka ciidanka iyo sida ay qarsoodi ama sir ay u tahay oo banaanka aan laga helaynin. Saddex, awoodda dhanka ciidanka, dhanka maaliyadda, logistikada iyo juqraafiga. xitaa mararka qaarkii waxa la qiimeeyaa tirada ciidan ee dawladdaasi ay leedahay iyo dadkeeda inay isu dhigmaan tirada ciidanka kaydka kuwa markaasi diyaarka u ah inay ciidanka ku biiraan. waa meelaha ugu badan ee laga qiimeeyo awoodda ay ciidamadu ay ku sareeyaan. waxa kale oo laga qiimeeyaa dhanka diyaaradaha ay haystaan, kuwa wax basaasi karaya, kuwa duqeymaha fuli karaya, helikobtarada, dhanka ciidanka badda iyo tayadooda. waxa sidoo kale laga qiimeeyaa taangiyada, maraakiibta, doomaha dheereeya, gujisyada, waxyaabahaas oo idil ayaa laga qiimeeyaa. bariga dhexe marka la joogo kaalinta kood waxaa ku jira dalka Turkiga, laakiin caalamiyan marka loo fiiriyo Turkiga kaalinta 13aad ayuu galayaa guud ahaan caalamka marka laga hadlayo. kaalinta labaad bariga dhexe waxaa soo gashay Israa'iil, waxaana lagu tilmaamayaa maamul ama dawlad awood badan dhanka ciidanka marka laga hadlayo. caalamka marka loo fiiriyana kaalinta 15aad ayay ku jirtaa. marka laga hadlayo dhanka Carabta, dawladda Masar ayaa kaalinta koowaad gashay oo tayada ciidankeeda ayaa aad u sareeya, inkastoo caalamka marka loo eegay kaalin hoose ay ku jirtay ay ugu yaraan 20aad ilaa 20aad ay ku dhowdahay. kaalinta labaad wadamada Carabta marka loo fiiriyo waxaa soo galaya Sacuudiga, inkastoo kaalinta 22aad uu kaga jira caalamka marka loo eego. Algeria kaalinta 3aad ayay soo gashay ama Jazaa'ir marka loo fiiriyo dhanka iyo Carabta. caalamka marka loo eegana kaalinta 25aad ayay soo galaysaa. waxaa jira marka dawlado hoos u dhac sameeyay sanadkii la soo dhaafay iyo dawlado kor u soo kacay. Japan oo kale hoos ayay u dhacday, Hindiya oo kalena way soo dhaqaaqday. dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid noqday dawladaha sagxadda jooga ama kuwa ugu hooseeya dhanka ciidanka marka laga hadlayo. 5 dawladood ayaa la yiri way ugu hooseeyaan ama way ugu liitaan dhanka ciidanka. waa Kosovo, Afrikada Dhexe, Bhutan, Soomaaliya iyo dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. dawladaha Carabta marka laga hadlayo kuwa sare u kac sameeyana waxaa kamid ah Imaaraadka Carabta iyo Ciraaq oo marka loo fiiriyo halka ay joogeen 2023 2024 sare ayay u soo kaceen oo waxay hagaajiyeen tayada ciidankooda. maxay kula tahay qaybtoos aragtidaada ku reeb waad mahadsantahay. nabadgelyo.